وهاك جانا قليال هدي إنه برتي كسي وطن إن شاء الله مقال كان وحن سجارة وجود الاستاجي دونا مركو وحل شمع سميس مية سيدا وكو سميس مو كلية واحد جراه لبنا نوع شمعياه anytime frame كفيري وقت جاء عربتي شمع حكومة تلية أما هالنقطة شمع حكومة تلية مالين حكتي أما هالنقطة شمع حكومة تلية ساعات 4 ساعة 8 ساعة 6 ساعة 5 ساعة 5 دقيقة 1 دقيقة 8 دقيقة 8 دقيقة انتو ربها كسميس مشمعه بس لبا نوع شمع يا كليا يا جرا وشمع بولش oo kor u jeeda iyo shumac beerish ah oo hoos jeeda ereyga bul iyo beer waxa laga kala keenay labada xayawaan ee ah lo-geesida oo bul ah iyo xayawaanka madax ku tagay la yiraahdo ama beerka oo la yiraahdo beerka asagana si kala deyn dara shumaca kor u jeeda ee bayga ah sibuu ku dhismaa shumaca hoos jeeda ee selka ahna sibuu ku dhismaa mar way jirtaa labada shumac ay uu korna ahayn hoosna ahayn oo dooj ayaa la yiraahdaa oo body dan usan lahayn hadii insha Allah sida hortiina ka muuqata aynu guda galno waxa la yiraahdo shumacyadaasi sida ay ku dhismaan sida marka uu shumacu furmayo waxay ku xiran tahay nooca shumac ee uu yahay tusaale ahaan hadii minka shumaceena uu noqdo shumac aan casaan ah waxa la yiraahdo deetana sidaan u eeka oo ka yimid oo kor ka yimid marka uu sameysmayo process uu maro oo uu sameysmaa ayaa jira tusaale yaalna insha Allah waynu arki doonaa shumacu markiisa hore oo uu sameysmayo sidan ayuu eegyahay oo dhowrkan qodob ayaan doonaynaa insha Allah in aynu qeexno hadii aan kan wiki ka dhigno maxay dhowrka qodob aan doonaynaa in qeexno shumacan markii uu furmayay maadaama uu noqday shumac ugu dambeyntiisii casaan ku dhamaaday wuxuu noqonayaa shumac halkan ka furmay oo meeshaas waxaa loo yaqaanaa open of the candle ayaa la yiraahdaa meeshaan uu ku dhamaadayna waxa la yiraahdaa close of the candle ayaa la yiraahdaa ama waa meeshii uu ku xirmay macnaha meeshaan ku jira waxa weeye shumacan markii uu furmayay sidaan ayuu u furmay halkaan ayuu ka yimi oo shumac kor ka yimi ayuu ahaa okay halkaan ka furmay openkiisa hadii uu xirmi lahaa haduu kor ku xirmi lahaa cagaar buu isku bedeli lahaa haduu hoos ku xirmi lahaana casaan ayuu isku bedeli lahaa hadaba shumac walba meesha uu ka furmo waxa ku garan kartaa close-ku meesha uu ka jiro shumac walba oo casaan ah close-ki hoos ayuu ka jiraa ama meesha uu ku xirmay arinta waxay ka anfici doontaa markan advanced section ka gaarno inaad baratid inaad fahamtid waxa la yiraahdo imbalance-ga hadaba meelahan waxa loo kala yaqaanaa high of the candle iyo low of the candle ayaa la kala yiraahdaa meelahan halkan waxa la yiraahdaa high ayaa la yiraahdaa oo high waa maxay waa meeshii ugu fogeed ama ugu sareysay oo kaaray candle-kaani halkaana waxa la yiraahdaa low waa meeshii ugu hooseysay oo candle-ku gaaray macnaha ku jira waxa weeye candle-kan kow markii uu furmay halkaan ayuu ka bilowday daqiiqadihiisa ugu horeysay let's say candle-kan inuu yahay 1 hour candle daqiiqadihiisa ugu horeysay cagaar ayuu ahaa oo muxuu ku bilowday as a candle cagaar ayuu ku bilowday oo sidaan u eka korkaas markii uu tagay maxaa dhacday cagaarnimadii wuu waayay waa uu soo laabtay bartii uu ka furmay markuu yimid saas uu noqonaya wax midaba kama muuqanaya the second uu dhinaca kale u gudbo muxuu isku bedelayaa casaan ayuu isku bedelayaa macnaha meeshan ku jira waxa weeye marka suuqan markii uu furmay waxa ku awood ku lahaa buyerska ayaa awood ku lahaa oo buy baa loo waday qiimaha kor ayuu socday buyerskii ama faa'iidadoodii bay qaateen ama suuqii way ka baxeen ama sellers fara badan ayaa suuqa soo galay marka albaabka suuqa uu ka furmay candle-ka la yimaado sellerska ayaa awoodii la wareegaya all the way ilaa halkaas ayay geeyeen oo ah meeshii ugu hooseysay ay geeyeen halka candle-ku markuu tagay waxa laga yaabaa 10 daqiiqo ama 20 daqiiqo kale inay ka dhimanayd candle-ka dhamaadkiisa dadka waxa laga yaabaa inay faa'iidadoodii qaateen candle-kuna uu soo yaraaday ilaa uu ka yimid meeshaan ay ku qoran tahay close-ka daba waa muhiim inaad baratid candle-ku close-kiisa iyo openkiisa because hadda wuxuu ka anfici doonaa inaad ku qiimeysid kow trendiga higher high iyo lower low-ga sidoo kale wuxuu ka anfici doonaa inaad ku qiimeysid waxa la yiraahdo imbalance-ga suuqa hadaba labadan qaab ee candle-ka labada nooc ee candle-ka qaybtan waxa la yiraahdaa body-ga ayaa la yiraahdaa waa qaybta muujinaysa candle-ka in ay sellers iyo buyers ku jiraan qaybtana waxa la yiraahdaa wick waa qayb muujinaysa meel uu candle-ku gaaray laakiin laga soo celiyay means halkan marka uu wiigan wuxuu sameysmay horay wax u dhacay weey waa raadki candle-ka weey inta halka ay sellers gaareen kadibna waa la soo celiyay intii la soo celiyay ayaa wiik loo yaqaan marka inta caatada ee banaan ee candle-ka waxa la yiraahdaa wiik inta buurana waxa loo yaqaanaa body daba candle-kan midkiisa hadii aynu dhisno ama ka soo horjeedkiisa ah sidan ayuu ekaan lahaa
inaga oo ka fiirinina kor inaga oo ka fiirinina haddii candle-ku uu sidan u samaysmo oo uu candle cagaar ahaa alright badanaa kuma khasbanid candle-ka buyga ay kor u socdeen aad cagaar ka dhigatid ama aad casaan ka dhigatid xor ayaa tahay dad waxaa jira madow ka dhigta candle-lada oo dhan xalay ayaan ka soo hadalnay videogan midkii ka horreeyay ayaan kaga soo hadalnay meesha lagaga dhiganayo meesha laga habaysto marka aad candle-ka bedelaysid midabkiisa dabcan kan marka uu furmayay shumacaani halkan ayaa openkii ahayd waa aan niri meeshaan open ayay ahayd because candle-ka ugu dambeyntii cagaar ayuu ku dhamaaday haddii candle-kan ugu dambeyntii cagaar uu casaan ku dhamaan lahaa openku halkan ma noqdeen ee kor ayuu noqon lahaa hadduu casaan ku dhamaan lahaa maadaama uu halkan ka furmay close-kiina xagee ayuu noqonayaa close-kii candle-kana halkan ayuu noqonayaa alright close candle-ka xagee ayuu noqonayaa halkan ayaa close-kii inoo noqonaysa alright meeshaanina waxay ku noqonaysaa waxay noqonaysaa low of the candle ayay noqonaysaa halkaasina waxay noqonaysaa high of the candle intaan dhexe ee buuran waxay noqonaysaa body intaan yartahay caatadaana maxay noqonaysaa week ayay noqonaysaa inaad dhowrkaas qodob kala fahamtid runtii aad ayay ku anfici doontaa let's say marka information ayaad heshay informationkan markii aad helaysay candle-kan ayaa abuurmay okay for example haddii aan tusaale u qaadano candle-ladan cagaarka ah candle-kan ayaa abuurmay halkan ayuu ka bilowday candle-ka u dambeeyay baa qabsana meesha waxay noqonaysaa lowgii u dambeeyay u gaaray xagee buu candle ka abuurmay markuu abuurmayay halka ayuu ka abuurmay xagee ayuu waxa la yiraahdaa ku xirmay xagga ayuu ku xirmay xagee ayaa haygiisa u sareysay ahayd xagga ayay ahayd lowgiisa xagee ahayd xaggaas ayay ahayd عشان candle-kan markuu yimi waxay ka dhigan tahay suuqan kor ayaa loo waday oo buyerska ayaa maamulayay oo kor ayuu u socday alright tusaale kale hadii aan qabsano inagu waliba isku dayna inaan replayda isticmaalno let's say calaamada replayda waxay ka dhigan tahay inaan suuqa dib u soo celinayo candle-kan iminka dhamaaday candle-ka ku xiga sida uu u furmay ayaan fiirinayna candle-ka ku xigay halkee ayuu ka furmay oo openkii ahayd halkan ayaa openkii ahayd oo uu ka furmay bartaan ayuu ka furmay oo openkii ahayd why because candle-kii ka horreeyay ayaa xagga ku xirmay maxay noqotay openkiisii ayay taasi ahayd alright markii uu furmay marka daqiiqadii ugu horreeyay candle-kani iskama uusan aadin kor daqiiqadii ugu horreeyay muxuu ku socday daqiiqadii ugu horreeyay casaan ayuu ku socday alright si uu u sameeyo si uu lowgan u sameeyo then meeshaan maxay ku noqonaysaa meeshaan waxay ku noqonaysaa low of the candle ama meeshii ugu hooseysay ee uu candle ku gaaray ayay ku noqonaysaa halkaanna maxay ku noqonaysaa waxay ku noqonaysaa close ama meeshii uu ku xirmay candle-ku halkaasna maxay ku noqonaysaa halkaasna waxay ku noqonaysaa high ama meeshii ugu sareysay ee uu candle-kan gaaray iminkan candle-ka ku xiga wuxuu ku khasban yahay in uu meesha uu kani ku xirmay inuu ka furmo halkaas inuu ka furmo ayay noqonaysaa let's say inay dhacdo of course bartii ayuu ka furmay hase ahaatee markuu furmay daqiiqadihiisii ugu horreysay xagee ayuu soo aaday daqiiqadihiisii ugu horreysay candle-kani time frame-ka la jooga ayay hadba ku xiran tahay minuteskiisii ugu horreeyay hoos ayuu soo aaday kadibna kor ayuu aaday candle-kan candle ka dambeeya sidii oo kale ayuu sameeyay halka ayuu ku xirmay kan ku xiga waxaa rabnaa inuu halkaa ka furmo candle casaan ayuu noqday jihadii suuqa ayuuna bedelay halkee ayuu ka furmay candle-kani halkan ayuu ka furmay daqiiqadihiisii ugu horreysay xagee ayuu u socday korka ayuu u socday oo muxuu inoo abuuray wuxuu inoo abuuray high of the market-ka waxa la yiraahdo ayuu inoo abuuray kadib waa uu soo kala wareegay markii uu soo kala wareegay xagee ayuu aaday hoos ayuu aaday so meeshii uu ka furmay ee openka ahayd meeday meeshii uu ka furmay ee openka ahayd waa taasa alright bartaan uu ka furmay because kii ka horreeyay ayaa xagga ku xirmay xagee ayuu gaaray highgaas ayuu gaaray sidoo kale xagee ayuu ku xirmay xaggaan ayuu ku xirmay lowgii ugu dambeeyay uu gaaray xagee ahayd xaggaas ayay ahayd labadan candle waxay kuu muujinayaan waxa aan hadda ka soo hadalnay oo kale macnaha ku jirana waxa weeye suuqu inta uu halkan socday ee korka loo waday waxa awood ku lahaa suuqa waxa awood ku lahaa buyerska halka markii la gaaray buyerska waxay isku dayeen awoodooda sii wataan halkaas markay mariyeen way sii wadan waayeen waa laga awood badiyay sellers ayaa suuqa soo galay halka ayay geeyeen sellerskiina cabaar ayaa dib loo soo celiyay oo ayagoo la soo wado oo intrigii lagu soo wado ay saacadii candle ku dhacdo halka ayuu ku xirmay candle-ka midka ku xiga hadaa fiirisid wuxuu ku khasban yahay suuqu inuu halkan ka furmo openkiisu halka ayuu noqonayaa close-kiisu inuu hoos noqdo iyo
inuu kor noqdona waxay ku xiran tahay nooca kanalkaasi uu noqdo. kanalkaasi muxuu noqday cagaar ayuu noqday, which means halkii uu ka furmay hoos ayaa loo kaxeeyey waa la soo celiyey, kor ayaa loo kaxeeyey waa la soo celiyey, haddana iyadoo hoostii markale loo wado halkaa ayuu ku xirmay. so kanalkan oo kale waa waxa doojiga loo yaqaano ayuu usoo eegyahay oo waxaad arkaysaa meeshii uu ka furmay meeshii uu ka furmay waatana oo ku noqonaysa openkii maadaama uu kanal cagaara noqday, closekiisi meeyey, closekiisi waa halkaa uu ka xirmay, highgiiyo lowguna mar walba waa isku mid. waxaan filayaa inaad fahamteen sababta oo ah maanta oo dhan waxaynu akhrin doono demand and supply zone baan ka hadli doonaa, imbalance baan ka hadli doonaa, trades baan ka hadli doonaa, waxa aan mawduucyo ka hadli doono oo dhan waxa ay ugu dambeynta iskugu wada biyo shubanayaan oo kulligood hooyo iyo aabbo u noqonaya waxa la yiraahdo inaad fahamtid sida uu kanalista ku samaysmo. isku day videogan inaad boos ku qabatid asaga iyo kii ka horeeyaba qoraalada aan ka hadlayo inaad fahamtid macnaha meesha ku jira inaad dhuuxdid because inaad waxyaalaha fahamtid waxay kuu diyaarinaysaa inaad noqotid trader dhammaystiran oo fahma qisada shumacyada ay wadaan. suuqan ma buyerska awood ku leh mise sellerska ayaa awood ku leh. dabcan shumacyadu inta ay haddii ay kor u socdaanna oo ay kor u socdaan qiimaha suuqu wuu isbedelayaa, haddii ay hoos u socdaanna qiimaha suuqu wuu isbedelayaa. sirta ku jirta marka halkan ama waxyaalaha cajiibka ay forex kula tahay waxa weeye haddii uu suuqu hoos ku bedelana inagu waynu ka faa'iidaysanaynaa, haddii uu kor isku bedelana waynu ka faa'iidaysanaynaa. videogan mid ku xiga waxaynu ku fiirin doonaa marka sidee ayaan suuqa hoos ugu socdana isla hoos ugu raacayna uga faa'iidaysanaynaa, suuqa kor ugu socdana isla kor ugu raacayna uga faa'iidaysanaynaa. inta videogan mid ku xigaan ku kulmayna dhammaantiin waxaa idin leeyahay amaana Allah.